asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday war xasaasi ah maxaa ka jira in weerar culus oo ay qaaday ay ku dishay tiradii ugu badnayd ee maleeshiyaad hubaysan ma suuragalba in la burburiyey saanad ciidan oo amarkeeda iyo dirideeda uu lahaa mahadkaratay ma ku sugnaa goobta. halkan ayaan faahfaahinta dowladda laga helay iyo sidoo kale xogaha sirdoon idinkugu wadaagi doonaa. saraakiisha iyo madaxweynuhuna waxay ku kala qaybsameen hakinta dagaalka magaalada laascaanood inta lagu guda jiro daabulidda ergada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo garaadada ku sugan laascaanood. puntlandna fariin jes ayay u dirtay dowladda federaalka kadib qabsoomidda doorashadii waxayna ku wargelisay sida ay tahay ilbaaxnimada dimuqraadiyadda in loo qaato. wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee ciidanka militariga dalka uganda oo ku soo wajahan magaalada muqdisho xilli weli dhaawacyada iyo meydadka qaybo ka mid ay yeelaan caasimadda. intaa daawateen qodobada wararkeena ee daawada kusoo dhowo wararka oo dhammaystiran falow gare oo sheergare bejka la wadaag saaxiibada aragtidaada qaybta hoose noogu reeb. aanu ku bilowna war ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu shaaciyey in ay fulisay weeraradii ugu cuslaa ee islamarkaana lagu burburiyey saanad ciidan, gaadiid dagaal iyo sidoo kale kulayo doonaysay in ay isku gudbiyaan hub iyo agabyo kala duwan. in ka badan 30 xubnood ayay sheegtay dowladdu inay ku dishay weerarkan oo ka dhacay 4 deegaan iyo 4 barood oo hoostaga degmada kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda federaalka. qorshaha howlgalkan waxaa iska kaashaday ciidanka sirdoonka soomaaliya iyo militariga iyo saaxiibada caalamka ugu horeeya maraykanka sida warkan lagu sheegay. bayaanka dowladda waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in weerarkan lagu qaaday koox doonaysay in ay abaabusho gurmadyo iyo sidoo kale taakulayn ay u gudbinayso raggii weerarka ku qaaday saldhiggii ciidamada midooda afrika ay ku lahaayeen degmada ama magaalada ama deegaanka lagu magacaabo buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose. waxaana sheegtay dowladdu in taasi ay ka dhigan tahay in la baabi'iyey islamarkaana laga argoostay kooxihii biritaarayey kooxda weerarka fulisay. dhinaca kale ururka ay ka tirsan yihiin xubnaha la sheegay in la qarajiyey ayaa waxauu ku dhawaaqay inuu dilay 137 askari oo ka tirsan ciidanka midooda afrika gaar ahaan ciidanka militariga dalka uganda. waxauna soo bandhigay askar uu nolosha ku qabtay islamarkaana ay ka kaxaysteen xeradan ku taalay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose. gurmadyadii ayaa la waayey kadib markii kooxdu ay adeegsatay qaraxyo iyo sidoo kale hub culus iyadoo weliba gubtay tangiyadii iyo sidoo kale dhammaan gaadiidkii dagaalka ee ciidanka midooda afrika oo laga cararay. midooda afrika ciidamadiisa gaar ahaan ciidanka dalka uganda ayaa goor xaaladdu ay ku xun tahay waxay heleen gurmad kaga yimid dhinaca militariga soomaaliya kuwaas oo ka riixay ururkii weerarka soo qaaday. halkaasna waxaa ku badbaaday askar badan oo ka tirsan ciidamada midooda afrika gaar ahaan ciidanka dalka uganda. dhinaca kalena xogahaanu helayna ayaa waxay sheegayaan in wasiirka wasaaradda difaaca dalka uganda iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka lugta ee militariga dalkaasi inay ku soo wajahan yihiin magaalada muqdisho iyadoo weliba diyaaradaha dagaalka ee helikobtarku ay weli daabulayaan dhaawacyada iyo sidoo kale khasaaraha askarta uu soo gaaray. waxaana la filayaa in diyaarad weyn oo nooca xamuulka qaada ay caawa ka soo caga dhigato garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyadoo weliba qaadi doonto dhammaan meydadka iyo dhaawacyada iyaala xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu dabiibayo qaar ka mid a askarta ciidanka midooda afrika ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay gobolka shabeellaha hoose halka tirada meydadkuna ay noqdeen kuwa ugu tirada badan ee tiirsan islamarkaana lagu arooriyey xaruntaasi meydadkooda iyadoo weliba diyaaraduhu ay si joogta u soo daabulayaan. gaadiidkii dagaalka ee taangiyadii iyo sidoo kale gawaaridii qafilnay ayay dabqaba siiyeen kooxdani islamarkaana ay burburiyeen. waxaase arrintaasi feer socotay weerar xagga cirka iyo dhulka ah oo ay qaadeen ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka maraykanka iyagoo weliba si deg dega u weeraray 4 deegaan oo ku socotay ama ku taalay aagga degmada kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ka fuliyeen weeraradan khasaarada geystay. saraakiisha ciidanka iyo madaxweynaha ayaa isku khilaafay hakinta dagaalka laascaanood xilli dowladda federaalku ay ku howlan tahay
sidii ay muqdisho ugu daabuli lahayd garaadada iyo simada hoggaanka u ah dhaqdhaqaaqyada somalilan looga saarayo gobolka sool. xogaha aanu helnay ayaa xaqiijinaya in madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale saraakiisha ciidanku ay isku maandhaafeen arrintaasi, iyadoo madaxweyne muuse iyo taliskiisu ay soo jeediyaan in si deg deg ah loo sii wado howlgallada, halka saraakiisha xogogaalka ee ku sugan jiida horena ay soo jeediyaan in madaxweynuhu uu dib u dhigo dagaalkan iyo sidoo kale qaadidiisa. inta garaadada iyo dowladdu ay isku maqan yihiin, waxaa laga yaabaa in dagaal la-aan gobolka la qabsado, islamarkaana laga saaro ciidanka kaga yimid gurmadka meelo kala duwan oo ka tirsan puntland iyo sidoo kale dhinaca etoobiya oo dhallinyaradii ugu badnayd ay ka soo xarootay. waxaase arrintaasi ka biyadiiday islamarkaana ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud, miyaana ka sugayaa xal aniga oo heli kara awoodda iyo sidoo kale quwadda ciidamadeenna, madaafiicda iyo sidoo kale hubka aan haysanno ayaa 2 jibaar iyo 3 jibaar ku filan, xitaa anagoo jiifna ayaan la dagaalami karnaa, ayuu yidhi kuwa jiidda hore ee dagaalka ku sugan ama kuwa imaan doona xitaa. sidaa daraaddeed ma jirto cid aad ka sugtiin arrintaasi. waxaase la xaqiijiyey in saraakiisha qaarkood ay ka meermeereen in ay dagaalka sii bilaabaan sababo la xiriira xogogaalnimada ay u leeyihiin khasaaraha ka dhashay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay deegaanada gobolka sool, gaar ahaan aagga magaalada laascaanood, halkaas oo ay ka dhaceen xasuuqyo daran islamarkaana lagu hoobtay oo labada dhinacba askar badan ay kaga dhimantay. saraakiisha ka cagajiidaya in ay dagaalkaasi si toosa u bilaabaan waxaa ka mid ah sarkaalkii hogaaminayay qeybta 12aad ee militariga somalilan iyo sidoo kale saraakiisha uu ka mid yahay taliyaha aagga bari jenaraal cali bare. inkastoo saraakiisha qaar badan oo ka mid ah ay ku maqan yihiin dhaawacyo iyo sidoo kale qaarkoodna ay la maqan yihiin xanuuno ku dhacay oo intii ay ku sugnaayeen jiidda hore ee dagaalka. sida inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan SCC, waxaa soconaya guluf 2 dhinac leh, islamarkaana ay ku kala qaybsameen ciidanka militariga somalilan. qaarkood waxay soo jeediyeen in la aqbalo talooyinka iyo tallaabooyinka ka yimid dhinaca madaxweyne muuse biixi cabdi, halka saraakiisha qaarkoodna ay ku gacan sayreen oo ay tilmaameen inaan la joogin waqtigii la qaadi lahaa dagaal lagu degdego, maadaama suurtagal ay tahay in garaadada iyo sidoo kale xubnahan lagu xaniba magaalada muqdisho, islamarkaana uu hirgalo dadaalka ay wadaan qaar ka mida saaxiibada dowladda iyo sidoo kale xubno kale oo ka soo jeeda gobolada waqooyi kana tirsan hay-adaha dowladda federaalka, oo ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xubno kale oo doonaya in goboladaasi gacanta somalilan dib loogu celiyo inta uunan daba dheeraanin dagaalku xasuuqyana aynan ka dhicin aaggaasi. dhinaca kale haddii aanu eegnana, puntland ayaa fariin jeesjeesa u soo dirtay villa soomaaliya. fariinta ay dirtay puntland ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka iyo madaxdeeda looga baahan yahay in ay puntland kaga daydaan ilbaxnimada, horumarinta dimuqraadiyadda iyo sidoo kale hirgelinta doorashooyinka iyo nidaamka loo marayo. mar haddii dowladda federaalku aynan qabanin 15 sano ee lasoo dhaafay wax doorasho ah, xitaa iskuday ama himilooyin la xiriira doorasho ay qabato aynan dalka ka jirin, ayay madaxda puntland soo jeediyeen in looga daydo puntland horumarka, dimuqraadiyadda iyo sidoo kale ilbaxnimada nidaamka dowliga iyo ku dhaqankiisa. madaxweynaha puntland dr siciid cabdulaahi deni ayaa fariintan soo diray islamarkaana u diray villa soomaaliya kadib markii uu xaqiijiyey in culayskii siyaasadeed ee muddada dhabarka ka saarnaa uu ka degay, sidoo kalena ay jab xoogan oo siyaasadeed ay u muuqdaan kuwo la kulmaya xubnihii ka soo horjeeday ee dhinaca madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo barbar taagan jenaraal asad diyaano oo hogaamiya garabka siyaasadeed ama ururka la magac baxay mideeye, kuwaas oo si gaara uu hogaaminayo jenaraal asad diyaano oo ahaa musharaxii ugu codka badnaa ee la tartamay madaxweynaha xilligan talada haya ee puntland dr siciid cabdulaahi deni ayaa hoosta ka xariiqay in puntland ay cagta saartay wadadii horumarka, dowladnimada, dimuqraadiyadda iyo sidoo kale ambaqaadidda qorshaha ay muddo dheer ku haminayeen shacabka dowladda puntland. dowladda iyo shacabkuba waxay ku guuleysteen inay qabtaan doorashada 30 degmo iyo 7 gobol oo ka tirsan puntland. sidaa daraaddeedna xukuumadda xamar ee ku fashilantay hogaaminta iyo sidoo kale himilooyinka shacabka waxaa loo soo jeedinaya, ayaa lagu yidhi waraaqdan,
inay qaadato aragtida dowladda Puntland iyo shacabkeeda, iyadoo weliba ay jiraan dagaallo iyo colaado lagu furay. Ayay qabsadeen doorashadoodii, mana jirin hal qof oo kaga dhintay, hal qof oo kaga dhaawacmay, ama hal qof oo gacan loola tegay, loo gacan qaaday, ama dhibaato ay soo gaartay intii uu ku sii socday goobaha codbixinta. Dhammaan waxaa jiray fududayn loo sameynayay shacabka, xitaa qaarkood uma ay codaynin xukuumaddii iyo dowladdii talada haysay. Sida dhudhub oo kale waxaa dadku ay u codeeyeen urur siyaasadeedka mideeye oo dhammaan la wareegay xildhibaanadii, taasoo muujinaysa heerka hufnaanta doorashada iyo dimuqraadiyadda, ayaa lagu yiri waraaqdan. Muuqaalka shir garow la wadaag saaxiibada aragtida qaybta hoose noogu reebo ku xirna wararka dhambaalka wararka nabadgelyo.